السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالي حسن شيخ محمود انتي وسعودي ولها دورشوينك انتي لقصو هرجيدي مدحوينه دولة فدرالك الصومالية اسيقا كهورية محمد عبد الله فرماجو انت اي سعودي على عينتا فرماجو ايوه ان الربي ان وحلك بنايو waxa uu ku hadaaqay hal arin oo waxaa muhiim in loo laabto teendhada farmaajana uu ka tanaasulo arrimaha waqtigaasi lagu eedeynayay. Haddaba inta aan gudan galin muuqaalka waxaan idinka codsanayaa in aad sii gudbisaan oo aad like gareysaan, share gareysaan, lana sii wadaagtaan asxaabtiina. Haddaba waqtigii mudaxileedka Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa filada waa uu sii dhamaanayaa, waxaana hadda indhaha lagu wada hayaa xaalka siyaasadeed ee dalka. Mucaaradkii ma aysan sameynin wax tanaasul beeshii caalamkana waxay hadba dhinac ku rogaysaa xaalka siyaasadeed ee dalka, waxayna amar ku bixinaysaa in ay kulmaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxay sidoo kale ku daraysaa in muhiim ay tahay in laga wada heshiiyo oo la qabto doorasho wada ogol lagu yahay. waxay sidoo kale xusaysaa in Puntland iyo Jubbaland ay madasha tagaan oo ay ka qayb galaan inkastoo aysan qaadicin oo ay diideen ka qaybgalka shirkaasi. Su'aasha iyo halkan u socda waxay tahay inta aan faahfaahinta kala galin Xasan Sheekh Maxamuud sidii farmaajo oo kale ma ku laaban doonaa teendhadii uu sheegi jiray mise doorashadii uu sheegayay ee qof iyo cod ayuu dalka ka qaban doonaa. aragtidaada qaybta hoose noogu reeb. Haddaba dad badan ayaa isha ku haya arrintan, waxayse sheegayaan in Xasan ay u muuqato in uu ku laaban doono teendhada haddii uusan ku adkeysan qabashada doorashada qof iyo cod oo aysan doorashada noqon mid daahfuran, xalaal oo aan lagu shuban, isla markaana codadka hadda dadka la qoraayo aan laga dhigan kuwa doorashada Xasan Sheekh uu ugu soo baxo. waxay dadka falanqeeya siyaasadda ay tilmaamayaan in ay dhici karto Xasan in teendhada uu ku laabto iyada oo beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale uu kala kulmayo cadaadis, isla markaana taa ay ku noqon karto wajigabax iyo ceeb. dadka la diiwaangeliyay ee banaanka taagnaa waqtigoodii lumayena waxay ku tilmaameen in Xasan iyo tiimkiisa ay u dhigeen shirqool aan meel gaarin. haddaba waxaa Xasan iyo tiimkiisa u harsan muddo 1 sano iyo bil haddii aysanba kasii yareen, lamana oga halka ay ku biyashuban doonto xaalkan isjiidka ee siyaasadda Soomaaliya iyo cagajugleynta siyaasiyiinta, cadaadiska beesha caalamka iyo sidoo kale mowqifka Xasan iyo tiimkiisa ee doorasho qof iyo cod ku saabsan iyo jahawareerka siyaasadeed ee dalka waqtigan uu ku jiro. haddaba adeeg ahaan maxaa tali iyo tusaale oo ay ka dhiiban lahayd arrintan ka taagan dalka ee arrimaha doorashada la isku haysto ee 4 sano kadib markasta soo laabata in mucaaradkii ay dhinac istaagaan, tiimka dowladda ee vilada joogana ay dhinac istaagaan, beesha caalamkana ay culays saarto dhinacyada waqtigaasi ishaya. maxaa u furan shacabka Soomaaliyeed, sideesa xalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu ku jira? aragtidaada mar kale kadib qodobkaasi muuqaalkana si gudbi. Salaamu calaykum.